Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada Gari Global Network. Maanta waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan gobolka Daawa, Somali State. Warbixintuna waxaan noo diyaariyay walaalkeena Baganaale. Warbixintuna waa sidatan dhageysi waxaan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والاليال ميلا جوكتا ويدين سلام يا سلامتي اسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دين لي سلامك بعدي وحن رمينا هل كان يدين لو ذاقو وربحينكو سابسان قبل كداوة اسمام الكسومالي ده سيدينتيني بد الله سعوتا قبل كداوة وحاكب اللو ذي وحلا يرادو قما أما إسلا حسابتا كاسي وحو كب اللو ذي ديق مدى خددوما degmadaasi waxa xisaabtankaasi wax lagu helay gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisi iyo wixii kale la halmaala hase yeeshee isla xisaabtankaasi waxa halkaasi lagu eedeeyay in gudoomiye ku-xigeenku ay wax isdabamarintaasi waxa ka dhalatay in gudoomiyihii labadoodba la xiro ama maaragtay jeel lagu dhaadhiciyo hase yeeshee isla xisaabtanka kadib guddigaasi isla xisaabtanka waxay sii gudbeen degmada la yiraahdo Mubaarak. degmada Mubaarakna waxay shaqada ka joojiyeen gudoomiye ku-xigeen labadooduba shaqo ayay ka joojiyeen waxay yiraahdeen wax isdabamira halkaas ayaa ka jira ama maaragtay waa dhibaad geysateen marka shaqada saasba idinka joojinaa yiraahdeen shaqadii laga joojiyo wax dhiba malaha qofka haduu dimbi galo ama waaragtay sidii la rabo uusan umada u shaqeynaynin shaqadii waa laga joojin karaa laakiin waxa sida looga joojin karaa waa in ay tahay saxaqa iyo cadaalad waa in ay noqoto marka nimankaasi marka arrinkaas ay sameeyeen waxa halkaasi ka sii gudbeen waxay aadeen degmada Uudad marka u yimaadeen la casho halabeen bay bariyeen habeenkii labaad way ka soo noqdeen iyagoo ku andacoonayo meeshii kullay jijigaana laga soo wacay baa inta yiraahdeen ka soo noqdeen si waxaan warbixin ku helay oo xaqiiqa sida aan xogta ku helay in nimanka halkaasi ay intii la xisaabtami lahayn maamulka degmadaasi ay door bideen in halkaasi lacag ay ka qaataan lacagtaasi waxay uga qaateen kuwa maamulka marka halka jooga oo ay ku yiraahdeen annaguna hadda waa baxayna laakiin waxaad yeelaysiin isla xisaabtan idinku sameeymayno ama gama idinku sameeymayno waxaad na siisaan lacag gaalayso $1,400,000 oo bir $1,400,000 sidaan warbixin ku helay waaye $1,400,000 baa ay yiraahdeen ay ku andacoodeen nimankii oo maamulka meesha jooga wayagana waxa yiraahdeen $1,400,000 ma hayne had waxa naga qaadataan $800,000 bay ka qaateen halka waxa ugu haray $600,000 waxa yiraahdeen $600 oo dhan ma idin siin karo awoodaas ma lihin ina idin siino laakiin $400,000 marka aad soo noqotaan aad maaragtay gama nagu sameeysan ayaa idin qadimayna saasi ayay uga soo baxeen lacagtaasi seemaanta sidaan warbixin ugu helay in hadda lagu bilaabay in laga aruuriyo qabalayaasha degmada Uudad iyagoo loo yeelayo magaca oo dakhli ama maaragtay cashuur ururin ama ayaan umada uga aruurinayna qabale walba maanta waxa la saaray lacagtaasi lacag oo dawladdu ay leedahay maahan lacag nimankaasi maaragtay nimanka maamulka gobolka ay ka qaateen $800,000 oo horumaraysa iyo intii u hartayna loo soo aruuriyo ama $800,000 ama $1,400,000 oo $200 iyaga u dhaafeen oo yiraahdeen $400,000 nasiya $800,000 hadda waa qaadanayna $400,000 markaan soo noqonay aad noo dhameystiraysiin saasi ayaa uga qaateen cadaalad darradaasi ayaa meesha ku sameeyeen marka hadda waxay u fadhiyaan degmada Mooyaale sidaan warbixinta ku helayno ama maaragtay warbixin naga soo gaartay degmada Mooyaale iyaduna waxa la yiri $1,800,000 nasiya $1,800,000 gama idinku sameeymayno waxa weeye
isla xisaabtan idinku sameeymayno milyan 800 kun nasiya 400 kun sida nagu maqaalaa waxa bixiyay ninka ugu sareeya RRC ayaa laga qaaday 400 kun oo bir 400 na maamulka digmada waa inay soo aruuriyaan la yiri hadii taas u fadhiyaan taas haday in maaragtay sida u qarinayaan siday maaragtay lacagtaas u qarsanayaan ba maaragtay maanta inay yiraahdeen gama ama maaragtay isla xisaabtan ba idinku sameeynayna labadii kale oo digmada Mubaarak iyo digmada Qadaduma waa nimanka u diiday sida iyagu ay rabaan u diideen ayay shaqo uga joojiyeen qaarna xireen qaarna shaqo uga joojiyeen kuwa u ogolaaday inay lacag dhiibaan lacagtoodu waa ka qaateen qabdi maqashi waxba u qabanin ba haddi ku jiraan wax gama la yiraahdo halkaas dadkii la xisaabtamayo oo ma jirto lacag baa la qaatay marka cadaalad darra intaas leeg ummadda lagu haayo si hadii lacagtan ay qaataan milyan 800 nimanka la siinayaan halka waxaad ku arki doontaan ama aad ku daawan doontaan guriga kawaanka ama meesha xoolaha lagu qalo halkan ayaad ku arki doontaan masawirkoodii iyo meeshi waxay qashin oo yaala halkan ayaad ku daawan doontaan ishiina ayaa idii macalina waayo guriga yar oo halka lagu dhisay oo dhulkii hore oo uu lahaa oo la iibsaday meel yara la yirinin shakhsiga halka ka dhis haba dhisay oo meesha xoolaha lagu qalayo meesha urkeedii magaalada Mooyaale ninkii tagay urkeedii 2 mayl baa laga soo urinaya hadii meeshaasi ay sida tahay iyaguna ay dhiba milyan 800 kun iyagoo waliba ilaa maanta tan oo ku dhax jira guri kiraa office ahaan dhax fadhiya oo bixinayaan laaluush milyan 800 kun inay dhiibayaan bal walaaliyaalo fiirsada meeshan maaragtay kawaanka xoolaha lagu qalo sida ay tahay runtii ummadani waa inay ummadan u turaan waa inay ummadani ay maaragtay iyaga ka dhashay iyaga mishaar ku qaata iyaga ilmaha ku korsada annaga qof shakhsi aan u targareegareynayna malay hadii digmada uudad intaas milyan laaluush ka soo qaateen digmada Mooyaale intaas milyan laaluush ka soo qaateen amulka gobolka ayaanu nahay annaga gama idinku sameeynayna lacagtaasi nimanka ay ka soo qaateen meel kale ay ka soo qaadayna ma jirtay laga soo aruurina masaakiinta hadda aan waxba haysanin ama qamadiga ilmaha ku korsadaan ay maaragtay soo iibinayaan nin walbo liqoonbara la leeyahay soo iibi qabalaaga intaas kuna saarre marta cadaalad maahan waxay ummadan u soo kordhinayaan ilaahay abuure haday maamul digmo tahay haday maamul gobol tahay haday maamul kale tahay ma jirto hadii ninka kugu sareeyo uu ku iibsado ummadan xagee aadaysa bal 1 milyan 800 kun magaalada biyaha waa galin lahayd iskuul baa u dhisi lahayd caafimaadkooda wax ka qaban lahayd meel qashin lagu daadiyo ayaa wax ka qaban lahayd si hadaad aad laaluushid ama aad bixisid si aad kursi ugu fadhido ma ogtahay inaadan kursiga ilaahay hadii bani aadmu ku dhaafatay ilaahay usan ku dhaafi doonin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله توفيق مقعيقن وباقنا لي وحو مسوق ما سوق يا هاي سياد وغمار ستار معناه هايدين دعاء منكي موغو نمقل منكي موغو نمقل وحو مسوق ما سوق يا هاي سياد وغمار ستار معناه هايدين دعاء منكي موغو نمقل منكي موغو نمقل مسؤوليتي وحلقوس كله لو مامولو بالشغل لغو كلامرون مني ما وحب الله قبن كان مهران ايو مدها احلو بدعو ايو مسوق ما سوق يا هاي مسؤوليتي وحلقوس
kana mahuraanayo madaha loogu dhaco ayuu musuqmaasuq yahay ninkii maamula hantida malkooyinka horumarkiyo maaraynta danguud la rabay mashaariic lagu dhiso manaafiicsado shacbigu haddana meel kale la mara ayaa musuqmaasuq